Movement Organization waxaa maanta aan isku imaanay kulankeena wuxuu ahay in aan waxyaabo badan falanqeyno barnaamijyo badan aan ka hadalno sida aan barnaamijkeena aan ka hadlayno oo ahay visionkeena kadibna aan ka hadalnay barnaamijka kaleeto nooxiga oo ahay sidee aan bulshada wax ugu qaban karnaa sidee bulshada aan u kaabi karnaa sidee dhalinyarta Soomaaliyeed oo maanta magaalada xaaladdeedu xun tahay oo sidee aan wax ugu qaban karnaa waxaan kaleeto aan falanqeynay barnaamij kaleeto ahay dhibaatada maanta Soomaaliya ka taagan dhan walba ahaato dhan diineed ahaato dhan maadin ahaato maanta saawad ognahay nin walba wuxuu ka soo kacaa guri nin walba wuxuu ka soo kacaa hooy dad waxaa jiro heesanin hooy email ka soo kacaan oo darbiyada jifaan marka waxaan aan meeshaan aan ku laba qurayna wax kale maahan sida dadka hooy la'aanta guri la'aanta waxba heesanin sidee anaga aan uga cidinayna magaca noo taagan waxa waaye Somali Youth Movement Organization waxaan ka shaqeynaa wax kale maahan dhalinyarta inaan caawino bulshada inaan caawino in dadkii wax bartay naftirkooda aan u qabano dood cilmiyeed sida ardayda jaamacadaha oo kaleeto walba arday joogo inaan caawino waxaan kaleeto aan bulshada ugu wacyigelinayaa waxaa magaalada soo galay cudur la yiraahdo coronavirus cudurkaasna waa cudur halis ah intii waxaa leeyahay bulshada meel walba ay joogaan Allah nagu badbaadiyo cudurkana Allah naga qabto caafimaad taamna Allah na wada siiyo dhammaan bulshooyinka meel walba ay joogaan dhammaantiin waa idin salaamayaa xubnaha iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Somali Youth Movement Organization aad baan ugu faraxsanahay maanta kulankan dhammaan xubnaha organizationka iyo gudoomiyaha madaxdiisa ay ku kulmeen ururka dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu u taagan yahay taabagelinta iyo wacyigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed inta badan wuxuu awood saaraa arrimaha bulshada dhanka caafimaadka waxbarashada wacyigelinta dhan walba dhanka waxbarashada waa awoodisa tahay ururkan waxaa asaasay dhalinyaro aqoon-yahaniin Soomaaliyeed oo jaamacadaha dalka wax ka barta inay saldhigna waxa u ah waxbarashada iyo aqoonta ururkan hadafadiisa waxaa ka mid ah siday dhalaanka Soomaaliyeed u heli lahaayeen waxbarasho tayeysan sidii u heli lahaayeen dhalaanka aan waxbarasho fursad u helin si ay markale fursad ugu heli lahaayeen sarjadooda u noolaan lahaayeen Somali Youth Movement Organization wuxuu ka shaqeynayaa walaalka Soomaaliyeed oo fursad waxbarasho helin sababa dhaqaale dartood inay gaarsiiyaan waxbarasho ilaa lacaga ama kaama ku jiro ama meel kale ha joogo inay gaarsiiyaan si mutadawacnimo u gaarsiiyaan waxaa ognahay anaka Soomaaliyeed aan nahay 20 sano la soo dhaafay 30 sano la soo dhaafay dawlad ma lahayn qabiil waxa la dhahaa ayaa burburiyay dalkeen boqolkiiba 90 jiilalkeena waxaa ku barakaramsan anagii wixii naga horreeyay qabiil waxa la dhaho isbaankeena marka waxaa rabnaa anaga inaan waxa soo tirtirno oo soo saarno dhannan Soomaaliyeed oo waxa soo ka hufan mustaqbalkaaga birta qof kasta anaga maanta dil weydiiyo mustaqbalka birta jiilka Soomaaliyeed yaa waay anaga waa ku dhaha mustaqbalkeena gacanta inuu ku jira soo ugu jira marka haddaan inta jaamacad aad dhigto baaj qaato iska sii soo ama aan shaqahan ama aan shaqeyn meel iska joog mustaqbal ma sameysanayo mustaqbal maya mustaqbal sax waxa dhisata marka wadanka horumarisid wadankaagana horumari kartid ilaa dad kale horumarisid dad kale horumari kartid ilaa aad saacad isku nimaada wax meel isku wado so waxa anaga noo base inaad waxyaabaha soo qabano insha Allah السلام عليكم دمان Soomaaliyeed meel baad joogtaa waan idin salaamay anagoo ah Somali Youth Movement Organization waxaa maanta halkan isugu nimid dhammaan ururka dhalinyarada waxaa kulankan soo qaban qaabiyay gudoomiyaha Liibaan Nuur iyo gudoomiyaha arrimaha dibadda Ambassador Abdikaafi Maxamed markii ugu horeysa waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay saxaabiyaan markaan anaga saxaabina kadib Ilaahayna caawinayo wax wanaagsan in mataqaana qofka walaalka inta wax siileed horta markii ugu horeysa inaad wax u sheegto qof wax ku siiyay qof wax ku sheegay ku kala wanaagsan yahay
sidoo kale waxaa maanta halkan uga hadalnay dhowr qodob. waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dalka ka jira. marka ugu horeyso waxaa gobolada dalka ka dhacaya dagaalo ay isku dagaalayaan dad Soomaaliyeed isku luqada, isku diin, isku dhaqan ah oo meel wada degan. waxay isku dilayaan ilaa iyo hadda ayaguba aysan wacdeen, anaguna noo cadeen. xilligan la joogo oo adduunkan mataqaanaa globalizationka uu baaxad weyn yahay, adduunkuna la dagaalamayo cudur yar aan taaban karin, ayaguna isku dilayaan qabiil iyo reer hebel iyo reer hebel oo wax laga xumaado. sidoo kale waxaa jirta oo mataqaanaa ka dhacaya walaweyn Kismaayo wax indhaha bini'aadanka laga qaran karayo maaha. waa wax ka fog shareecada islaamka iyo bini'aadanimada. qof walaalkaa inaad gubto ama aad dishaba, inaad gubto iska daa, inaad disho aan dhiigiisaan kuu banaaneen, hadda inaad qof nool aad gubto iska daa. sidoo kale Kismaayo waxaa ka dhacaya in laba beelo wada degto walaalo ah ay isdilaan. waa wax horta laga xumaado, anaga ka dhalinyaro ahaan waan cambaareynayna taas. sidoo kale wax mataqaanaaye oo foolxumo badan baa ka dhacaya Soomaaliya wada. tusaale ahaan iminka Kismaayo waxaa afgooye waxaa ka dhacay laba gabdhood oo yar yar oo da'dooda 5 sano aan ka weynayn inay ka yartaa mooyaane lagu kufsaday. taas waa wax mataqaanaaye indhaha shacabka Soomaaliyeed ay tahay inay mar hore ka hadlaan, waayo waa wax falal mar badan soo laabteen. haddii maanta aadan adiga ka hadlin gurigaaga imaanaysaa, waxaana waajib ku ah inaad ka hadasho, dhibta jirta aad sheegto. gabar waa dhashay waana kula dhalatay. sidoo kale culimada Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka waxgaradka waxay u sheegeen inay ka hadlaan taas, ay dhalinyarada ka wacyigeliyaan. waxaa kaloo mataqaanaa anaga baaq u diraynaa dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedooda ay ka socdaan dagaal beeleedka in sida ugu wanaagsan ay ku xaliyaan. waa wax aad looga xumaada in xilligan adduunkii coronavirus la dagaalamay anagina aan qabiil isku dilayno. intaas kusoo gabagabeynayna.